Assalaamu calaykum. Maanta muuqaalkeenu waxa uu ku saabsan yahay noocyada dagaalka. Haddaba intaynu gelin noocyada dagaalka, aynu isla fahanno qeexitaanka dagaalka. Dagaalku waa iska horimaad hubeysan oo abaabulan ama qorshaysan. Inta badan waa mid dheeraado oo aan maalin isbuuc iyo bil toona ku soo dhammaan. Darafyada iska horimaadku inta badan waa dawlado culoobay ama danahoodu isjiidheen. Sidoo kale, darafyadu waxay noqon karaan jilayaal aan dawli ahayn, sida qoomiyado, qabiilo, maafiya iyo maleeshiyaad. Waxaa laga yaabaa in gacanka hadalku uu dhex maro laba qof ama tiro kooban oo dad ah. Kaas laguma tilmaami karo dagaal, lagumana soo qaato qormooyinka saxaafadda adduunka, sababtoo ah waa shaqado kooban oo u badan inay dhaqso u dhammaato. Taariikhda dagaalka. Dagaalku waa mid ku lamaan taariikhda bani'aadanka, laga soo bilaabo markay ahaayeen hal qoys oo ka kooban aabbe iyo hooyo iyo ilmo wada dhashay oo walaala ah. Waxaan filayaa inaad fahantay ciddaan u jeedo. Haa, waa ilmo nebi aadan oo dhexdoodu ka dhacay dhiiggii ugu horreeyay ee dhulka ku daataa. Inkasta oo qabiil uusan qayb ka ahayn dagaalka, sida qur-aanku inooga warramay, maanta sababaha dagaalku waa tirabeel. Marka loo eego waqtiyadii hore, dadku wuxuu noqday boqolaal ummadood oo leh diimo, afaf iyo dhaqamo kala duwan. Waxaana u dhisan in ka badan 200 oo dawladood, kuwaas oo dhammaan leh ciidan loo carbiyey ilaalinta calamo iyo xuduudo kala duwan. Noocyada dagaalka. Inta uu ku noolaa dhulka guudkiisa bini'aadanku, horumar la taaban kara ayuu ka sameeyey dhammaan dhinacyada nolosha, xataa dhinacyada aan la mahdin ee galaaftay nolosha malaayiin dad ah oo ku baxay gacanta walaalahood. Daraasad lagu baahiyey mareegta Statista sanadii 2014 ayaa lagu soo bandhigay nolosha ugu halista badan dunida iyo tirada dilka ay geystaan sanad walba. Mucjisada lala yaabay ayaa in xayawaano khatar badan ay liis kaga galeen meel dambe. Sida ka muuqata, dadku waa noolaha labaad ee dilalka ugu badan u geysta bini'aadanka. Aynu u soo laabanno mawduuceena. Dagaalka qaybihiisa kala duwan, qofba meel ayuu ka eegaa. Laga yaabaa saaxiibka jaamac inuu fiiriyo cidda bilowday dagaalka, uuna kuu sheegay in dagaalku yahay 2 qaybood oo keliya, weerar iyo difaac. Halka Cali uu ku oran karo dagaalku waa mid sokeeye, sida kii Soomaalida dhex maray 1991 iyo mid shisheeye, sida kii aan la galnay Itoobiya 1977. Hala yaabin haddii Saalax oo ku xil dheer taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida uu kuu sheego dagaalka sidiisuba inuu yahay goob ama gaadmo. Caamir oo si fiican ugu xiran warbaahinta tabisa dagaalada ka socda dunida, isla markaana garanaya juqraafiyadaha lagu dagaalamo, ayaa ku oran kara dagaalka waxa lagu galaa 3 aag. Kan ugu badan waxa uu ka dhacaa bariga, waxa uu heliya kan lagu galo badda iyo hawada. Ruqiya oo ah gabar si fiican wax u baratay, waxay kuu sheegi kartaa in dagaalku yahay mid maskaxeed oo loo adeegsado waxbarashada iyo warbaahinta, iyo mid ciidan oo ah kan aad wada garanaysaan. Suldaan oo ku takhasusay tiknoolajiyadda wuxuu kugu darayaa dagaalada aad maqashay, kuwa cusub oo loo yaqaan cyber war iyo remote war. Cyberku waa dagaalada loo adeegsado tiknoolajiyadda iyo in lagu jabsado xogta cadowga ama waxyeelo lagu gaarsiiyo kombiyuutarada iyo sistamyada cadowga. Halka remote war loo yaqaano dagaalada la isu adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, baabuurta iyo maraakiibta aan wadaha lahayn. Waa dagaal ninka dagaalamaya uu fadhiyo xafiis, uuna xiran yahay suud ama labis xarago. Kamaal oo ku khafiifay aragtiyaha shirqoolka, wuxuu galo walba kaga sheekeeyaa noocyada dagaalka oo dunida guudkeeda aan weli ka dhicin, sida climate war oo ah nooc dagaal oo cimilada loo isticmaalo hub ahaan, iyada oo dalalka cadowga lala beegsanayo dhulgariiro, duufaano, foolkanayaal ama roobab xoogan oo reeba daad wax baabi'iya. Biological war oo uu Kamaal ka sheekeeyo, noocan cudurrada faafa ayaa ah hubka lagu gumaado dawladaha cadowga, wuxuuna tusaale ahaan u soo qaataa karoonaha oo ahaa xanuun safmar ah oo galaaftay nolosha ummad aad u tiro badan. Haddaba maxaa sababa dagaalka? Sababo kala duwan ayay u dhacaan dagaaladu. Gumaysi dhulbooba ayaa hurin kara, halgan gobonimo doon ayaa dhici kara, muran xuduudeed ayaa isna dhalan kara, kala duwanaan isir, damac dhaqaale, farqi diimeed, hiil, aargoorsi iyo sababo kale oo badan ayaa keeni kara inuu dagaal si fudud u qarxo. Danleyda dagaalka. Waxaa jira dadyow dharga maalinta uu dagaal qarxo. Faa'iido adduun ayay ka helaan dagaalada ay oogaan, waxba kama quseeyaan. Dhalinyarada sida xaabada loogu shidayo xasaradaha ay oogaan. Horaa loo yidhi dab munaafiq shiday muumin ayaa ku gubtaa. Inta badan danleydan waxay ka kooban yihiin jilayaal maxalli ah
iyo taageerayaal dawli ah. Dagaal oogayaasha waaweyni waxay suuro geliyaan in dalka la soo geliyo hub tiro beel ah, waxayna dhaqaale xad dhaaf ah ka sameeyaan hubka sharci darrada ah, halka qabqablayaasha maxalliga ahi ay yihiin gacanta loo isticmaalo oogidda dagaalka. Marka laga yimaado inta ku nafweyday dagaalka, waxaa jira dad barakaca oo ku hanti beela shaqaaqadaas. Dagaal oogayaasha dawliga ahi waxay gargaar ama kaalmo degdeg ah adduun weynaha uga soo ururiyaan dadka dhibaatadu gaadhay, halka qabqablayaashu ay sugaan ammaanka gargaarka si loo gaarsiiyo dadkii loogu talagalay. Waxaan filayaa inaad garan karto kaalmada maficeeda inay qaadanayaan nimanka soo ururiyey, sawirkeedana laga qaadayo masaakiinta loo keenay. Murtida dagaalka. Soomaalidu waa bulsho leh af hodan ah iyo dhaqan soo jireen ah. Xikmado badan oo dhaxalgal ah ayay noo reebeen awoowayaasheen. Si fiican ayayna sharax uga bixiyaan khasaaraha iyo foolxumada colaadda. Si taas la mid ah waxay noo dhigteeyeen qiimaha iyo faa'iidada nabadda. Rag gogoshii waa nabad. Nabad baa naas la nuuga leh. Inta nabadu jirtaa niba laba nin leegyahay. Nabad waa lagu hirtaa, colaadna waa laga haajiraa. Nabad waa lagu tarmaa, colaadna waa lagu tirmaa. Nabad la'aan lama lado. Rag gogoshii waa godob la'aan. Nabadoon oo uqaal iyo culimo u dir. Haddaan la kala roonaan roob ma da'o. Nabad la'aan waa nolol la'aan. Dagaal wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho. Col iyo abaar bacagahaagaa lagaga baxaa. Col ku galay cabsi kugu reeb. Way sokeeye iyo wii sakaaro midna ma baaqdo. Maahmaahyadan aan soo sheegnay waa kuwa tilmaamaya qiimaha nabadda, isla markaana sheegaya xumaanta colaadda. Taa beddelkeeda waxay leeyihiin maahmaahyo tilmaamaya in waqtiga iyo waayuhu dagaal ina badi karaan, sidaas darteedna ay tahay in mar walba dagaal loo diyaar garoobo. Khayr wax kaama dhimee, shar u tagahay. Col ka hor baa hub la yeeshaa, dagaal gondahaaguu ka qarxaa. Tira badnaanta murtida, nabadda iyo colaadda ee ka kooban maahmaahyada, heesaha, geeraarada iyo gabayadu, waxaynu ka fahmi karnaa in Soomaalidu ay tahay bulsho ay colaadi daashatay. Qofka Soomaaliga ahina uu khabiir ka yahay dagaalka iyo nabadda labadaba. Innaga oo haysanna dhaxalka iyo aqoonta intaa leeg, maxay ilaa maanta dalkeena u joogaan ciidamo nabad ilaalin ah oo laga soo ururiyay dawladaha dariska? Maxaynu u garwaaqsan la'aanahay qiimaha nabadda? Haddii aad hayso suugaan ku saabsan nabadda oo halkan ku habboon si looga wada faa'iideysto, hoos inoogu reeb. Ugu dambayntii, daawade, waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii muuqaalkeenna. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato kanaalkeenna, soo dhow oo subscribe saar. Sidoo kale, haddii aad hore inoola joogtay, muuqaalka like saar oo sii faafi si uu gaadho daawadayaal tiro badan. Mahadsanid.